munaasabaddan waxay mid lagu bogaadinayo laguna hambalyeeyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac Cali ayaa ka qabsoontay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. munaasabaddan ayaa waxaa lagaga waramay shakhsiyadda gaarka ah ee wasiirkaasi iyagoo guud ahaan dadka munaasabaddan ka hadlayay aqoon gaar ah u lahaayeen wasiirka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo u gartay eegay kartidii iyo aqoontiisii Maxamuud oo ugu tala galay inuu role model noqdo dhalinyarada ka dambaysa. madaxweyne mar haddaad maanta daayirtii noo magacawday bila ka hor Burco waxaad nooga magacawday barasaabkii Gabiilay Xamse Maxamed Cali maantana waxaad noo xigsiisay wasiir ku-xigeenkan gobolka Sanaa ka soo jeeda Maxamuud Warsame Jaamac. waxaan u hambalyeeynaa Maxamuud Warsame Jaamac Cali oo noqday wasiir ku-xigeenka uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirka cusub ee dhalinyarada ah loo magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Axmed Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aan ogahay inuu nin dhalinyaro firfircoon yahay ka himilo badan buu xabaarsan yahay ku dayashana wuu mudan yahay waaynu la dabaaldegaynaa waynu la farxaynaa walaalkeen runtii waxaanu leenahay Ilaahay ha u fududeeyo xilka uu qaaday isagana waxaanu leenahay kelmad kale aan kula dardaarmaynaa xil horaad qabatay aad baad sharafad iyo wanaag baad lagu hambalyeynaya ka dambana Ilaahay kugu guuleeyo dadaal badan siigal ha isdhiganin gobolka iyo dhalinyarada dadaal bay ka sugaysaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kugu asturo oo cawad khayr qaba oo jamhuuriyadda reer Soomaaliland aad noqotid mid hoggaan wanaagsan u noqda ayaanu ugu hambalyeynaa. wasiir ku-xigeenkan cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu magacaabay xilkaasi ayaa waxa uu hore u ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo. wasiirkan ayaa gobolka Sanaag waxa ay tahay shakhsiyadiisu mid ka sheegan iyadoo guud ahaan si weyn looga soo dhaweeyay dalka oo dhan magacaabistiisa. waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.